السلام عليكم. Nog maar 5 minuten en 15 seconden. 15. 10 seconden. 5 minuten. هلا محمد دقي في استيليا. السلام عليكم. waxaa u soo galay waxa waaye aniga oo weekend u sii socdo ilmihiina waa wadaan walaalayaal Afrika afar wadana laga sheegay BBC-da oo CNN-ta iyo BBC-da xalatoola laga sheekeynay please walaalahaaga Soomaaliyeed caawi coldoon sidii uu caawin jiro amal ugu istaaga waxaan ka codsanayaa wariyaasha Soomaaliyeed aniga oo ah jamaad jeesto waxaan codsanayaa shakhsi kasta oo Soomaaliya oo igu jiro qadka rabo inuu walaalihiisa Soomaaliyeed caawiyo waxaan ka codsanayaa aniga ahaan biyo markuu jidka ka gadanayo Maxamed Aamuso yaa FHS biyo hadduu jidka ka gadanayo inuu biyo raqiis gato sida kan oo kale waa 50 cent waa konton shilin kalarka anaa ka kariyo mujadin waa konton shilin wayaan meesha shilin cabtaan uga gadan leed konton shilin dhaqaale konton senti dhaqaale konton shilmaan konton senti dhaqaale sidii cabitaankaaga aad adiga cabi lahayd walaalkaaga Soomaaliyeed oo baahida u dhimanayo ku badbaadisid marka fadlan walaalahay Soomaaliyeed aan iscaawino insha Allah bidnil karim waxuma naga halaabayaan waa la qeyraya dalka waa nabadoobaya waxaan la yaabanahay oo kale dhalinyarada Soomaaliyeed qof shakhsiya markii lagu dhagaayo diyaar ay u yihiin aytamaan ay dagaalamaan ay live soo galaan waxaan la yaabanahay waxa waaye abaaraha bilowday shakhsi kasta uu aamusay maxaa idinka aamusiyay maxaa idinka cadow iskugu tihiin waaya cadow iskugu tihiin hadduu maanta qabiil bilowdana kulliin waa soo wada cararaysiin Soomaha ilaahay ka cabsada rasuulkiisa ka cabsada adaay waxaan soo saaray coldoon dawladda Soomaaliland soo deysaan of course dawladda Soomaaliland dad waxa kulli waa dawlad goboleed Soomaaliland ama wadan ha ahaato ama dawlad goboleed ha ahaato I don't care laakiin coldoon inuu ka soo jeeda aan ogahay coldoon wuxuu ahaa shakhsi qaali ah oo shakhsi Soomaaliyeed ah ma sha Allah tabarakallah wuxuu lacag ka aruurin jiray hooyooyinka dhalinyarada intii soo gasho social media-gan Facebook soo gasho marka wali codsigayga waan wataa konton senti cabitaan ku soo gado koolaan gadan kare jidka maraayay maan ka degtay 50 aan ku soo gatay lacagta aruuri mana yacle ha ka dhiganin waxa la quraan shaarurtu bulceejida hal shilin ama $1 wiil Soomaaliyeed ee baahi jirta wadamada abaaraha ku dhacay na waa Soomaaliya Nigeria wadamo badan adiga South Sudan muxuu ahaa waaye Yemenna waa lagu soo daray ani waan soo fiirsaday waan soo dhageystay walaalahayga Soomaaliyeed aan iscaawinno aan isgarab istaagno lacagta shalay coldoon idinka qaadi jiray idinka iska qaada oo isgarab istaaga aniga dhagoola iimalaysiin laakiin aniga wax walba ogahay hooyaan ahay ma awoodo intiiga awood fudud oo bixi karto oo dadku wax u qaban kartaa u qabato lacagta maskiimiinta iyo dadka dhalinyarada iyo dadka qurbaha anaga camal laga aruurinayana fadlan ilaahay ka cabsada sadaqa jaariya camal u dhiibanayna oo ilaahay nagu ogyahay lacagtaas yaa la marhabaabin nin walba naftiisu ka cariiri gelinaya nin walba naftiisa maandeeq hooy ay festilia igara la hada Maxamed yare imaandeeq yara ila socdaan waxaan u soconay dabaqaas u soconay gabar walaashay oo muddo aanan arkin gabadhii guli jirto ay jamaad jeesti jecel filinkaasi guli jirta gabadhaas walaashay waaye aadan soo naqaanaa ani iyada 5 sano naqaanaa salaado waa ku soo soconaa marka waqtigii wuu nagu soo dhacay fadlan walaalahayga Soomaaliyeed aan isgarab istaagno ilaahay ka cabsano walaalaan nahay ma fahantiin hagadanin hadafkeena waxa waaye hagadanin Coca-Cola oo 2 shilin 3 shilin ah ilaa yahuude kabaysaaye walaalkaaga Soomaaliyeed oo islaamka ah sida coldoon u caawi hadafkayga waa kaas 10 video oo soo duubi kara Cabduuli coldoon wuxuu sameyn jiray coldoon waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland inay sii dayso waa wiil Soomaaliyeed waa shakhsi qaaliya waa shakhsi islaam ah abaar kasta oo Soomaaliyeedna ka guban jiray waa maadsantihiin فيديو عن شارع لو قبته إلهي عن كعب سنة
2 shilin aa Coca-Cola ku gadi lahayd soo gada cabitaan raqiis ah oo 50 senti ah intaas codsiga ah waa maasantii. Assalaamu calaykum.